kulan wanaagsan saaxiibayaal lamaantii meel baa joogta mar kale ismaqal haboon ayaan hawada idinka leenahay kusoo dhawaada barnaamij gaar oo la xiriira arrimaha Kenya oo si gaar ah aan diiradda ugu saari doonaa hadduu guul la saamaxo waqtiga soo aadan dhanka golaha wasiirada oo magacaabistooda la gudageli doono maalinka la dhaariyo oo 13 bishan September madaxweynaha dooran ee dalka Kenya dheer sugana ah William Samoei Ruto hadaba Soomaaligii ugu saameynta badnaa xisbigaasi UDA isla markaana gabi walbaba la maray xilligii ay socotay ololaha doorashada ayaa noqon doona wasiirka Soomaalida ay ku yeelanayso iyadoona wararka hordhaca ee soo baxay ay sheegayaan inuu noqon doono wasiirka ugu awoodda badan laga hadlayo golaha wasiirada dalka Kenya ay yeelanayso waxana xilkan Soomaalidu inta badan ee markaasi ahaayeen kuwa hore u soo qabto iyadoona laga xusi karo in xilkaasi uu qabtay mid kamida odaygii ugu saameynta badnaa siyaasadda Kenya ilaa iyo haatan dhashiisana ay yihiin kuwa wali saameyn ku dhaxlay siyaasadda Kenya ayaa hore u soo qabtay waana allaha u naxariistay wasiirkii gaashaandhigga dalka Kenya Maxamed Yuusuf Xaaji waana aabaha dhalay Nuruddin iyo waliba Cabdul oo markaasi Kenya lagu xasuusto in taariikh aad u waaweyn ay ka dhigeen marka laga hadlayo dhanka siyaasadda iyo waliba doorashooyinkii ka qabsoomay deegaanada ay ka soo kala jeedaan ee Garissa Aadan Barre ayaana markan miiska u saaran inuu ka helo jagadii ugu saameynta badneed William Samoei Ruto saaxiibkiisa siyaasadda una kaga soo hijrooday xisbigii in muddo uu ka tirsanaa ee Jubilee una hogaaminayay madaxweynaha xilka ka sii degaya Uhuru Muigai Kenyatta hadaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay Aadan Barre Ducaale miyaa markaasi noqon doontaa hanta suuqa ku jirta inuu helo xilkaasi mise wasiir kale ayaa la siin doona Soomaalidase imise xil ayay ka heli kartaa golaha cabinetka dalka Kenya oo William Samoei Ruto la ogaa in aysan Soomaalidii ugu badnayd u codaynin marka laga reebo dhowr markaasi qofood oo ka soo jeeday deegaanka Marsabit oo ismaamulkaasi ay u codeeyeen waxaan inta badan ku faaqidi doonaa saameynta ay ku yeelan doonto kursiga uu ku fadhiyo xildhibaannimo Garissa Township miyaa dib loogu celin doonaa mise dastuurka dalalka dariska sida ay qabaan oo Soomaaliya ka mid tahay ayuu isku noqon doonaa xildhibaan iyo wasiir markaasi xilkiisa si gaara u guto barnaamijka alaaba waxa ila falanqeeya isla markaana wax ka soo qoray arrimahan waxana ka ogaaday Cabdiraxmaan Khaliif oo markaasi ah qoraa iyo waliba falanqeeya siyaasadda dalka Kenya saaxiibayaal haddii aad hore inoola joogto waan kaaga mahadcelinaynaa dhiiranaantaada iyo waliba dhiirigelinta barnaamijyada aan halkan idinku soo gudbino haddii aad nagu cusub tahayna waxaan kaa codsanaynaa si sharaf leh inaad channelka subscribe u saarto muuqaalkana aad la wadaagto saaxiibada aan helin xogaha iyo waliba barnaamijyada inta badan halkan aan ku soo gudbino ee siyaasadda iyo waliba dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaco adigoo u marinaya saaxiibadiin marigaha aad ku xiriidhaan aaraadana la isugu gudbiyo oo ay kamid tahay WhatsAppka, Facebooka iyo waliba Twitterka markan Cabdiraxmaan ayaa soo dhaweynayaa arrimahaasina wax badan ka ogaaday Cabdiraxmaan soo dhawow waxaan ognahay in William Samoei Ruto maalinka talaadada soo aadan 13 bishan 9 ee September in garoonka Kasarani lagu dhaarin doono isaga iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua wixii inta ka dambeeya waxa la gudageli doonaa dhisidda dawlad sida uu ku sheegay ololihiisa doorashada Kenyaanka oo dhan ay iska dhaxarkaan marka laga hadlayo in ay iska dhaxarkaan waxa jirta dad markaasi la soo maray jabhadeyn aan dhihi karno xilligii markaasi la ciilay ninkan la arkayay in hadda ka hor muuqaal warbaahinta Kenya ay baahinayeen in banaanka la istaajiyay gudahana ay ku jireen ninka lagu magacaabo Uhuru Kenyatta iyo Raila Amolo Odinga oo xilligii BBI-da ay socotay isaga Aadan Barre ayaana qayb ka ahaa in qorshahaasi Building Bridge Initiative-ka lagu magacaabo in la diido wixii inta ka dambeeyay olole ayaa la galay doorasho ayaa la galay kiis maxkamadeed ay tagtay inta badan waa ay ku guuleysteen xitaa speakerkii iyo waliba ku xigeenadii aqalkii sanadka iyaga ayaa wada qaatay xilligan waxa isha si gaar ah loogu hayaa in golaha wasiirada dalka Kenya la magacaabo maalinka dhaarta ay dhamaato madaxtooyada uu galo Uhuru u wareejiyo seefta dahabka iyo waliba qalabka kale madaxtooyada waxa la leeyahay Soomaalida yaa u noqon doona wasiir Aadan Barre inagoo og in hogaamiyaha aqlabiyadda dadka qaar ay aaminsanayeen in la siin doono
in markaasi laga joojiyey bal arrimahaasi iyo waxyaabaha markaasi ka ogaanay marka hore waxaan la soconaa in aadan bare ducaale uu yahay nin aad ugu dhow madaxweynaha dooran William Samoei Ruto marka hore waxaa la aaminsanaa in aadan bare ducaale uu noqon doono gudoomiyaha baarlamaanka balse xilkaasi waxaa la wareegay Moses Wetangula sidoo kale waxaa la aaminsanaa in aadan bare ducaale uu noqon doono hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka balse xilkaasi waxaa loo dhibi doonaa Kimani Ichung'wa oo kasoo jeedo gobolka dhexe hadda laakiin waxaa soo shaxbaxday in aadan bare ducaale uu ku biiri doono golaha wasiirada hadda waxaa la aaminsan yahay in aadan bare ducaale loo dhiibi doono mise uu noqon doono wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya waxaan la soconaa in aadan bare ducaale hadda uu yahay xildhibaan kasoo jeedo bartamaha magaalada Garissa balse su'aasha ayaa waxay tahay haddii aadan bare ducaale uu noqdo mise uu ka mid noqdo golaha wasiirada maxaa ka dhici doona magaalada Garissa laakiin waxaan ognahay in ducaale uu aad ugu sameeyey ninka la yiraahdo William Ruto ololaha doorashada campaignka wuxuu la maray dhammaan ismaamulada wuxuu la soo wareegay dhammaan magaalooyinka waxaa la ogyahay in aadan bare ducaale uu yahay nin aad ugu dhow William Samoei Ruto waa ninka kaliya ee Soomaaliyeed ay aad saaxiibo u dhow isku yihiin madaxweynaha dooran ee William Samoei Ruto waxaa sheegtay su'aal in isweydiin ay mudan tahay dadkana markaas isweydiinayaan hordhaca barnaamijkeenana aan ku sheegnay in haddii uu noqon karo sida Soomaaliya dastuurkeedu qaba in wasiir iyo xildhibaan uu qof isku noqdo sharciga Kenya waa uu ka duwan yahay inta badanna waa la badbaadaa oo sanadkii 2010 ayaa markii ugu dambeysay shuruucdiisa wax laga bedelay bal haddii uu noqdo xanta suuqa ku jirtana ay dhawowdo in wasiirka gaashaandhigga uu noqdo aadan bare xildhibaannimada Garissa Township yaa markaasi ku loolami doona saameynse ma ku yeelan karaan xisbiga UDA marka hore haddii aadan bare ducaale uu ka mid noqdo golaha wasiirada Garissa waxaa ka dhici doonta doorasho markii uu aadan bare soo guulaysanayay waxaa la tartamayay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Gaabane iyo sidoo kale Cabdinaasir Joofle hadda waxaa la aaminsan yahay in aadan bare ducaale haddii uu loo magacaabo wasiir in uu taageeri doono ninka la yiraahdo Cabdullaahi Gaabane sidaan hore u sheegay Garissa waxaa ka dhici doonta doorasho dib ayaa loo dooran doonaa xildhibaanka waxaana ku lowlami doonaa si haddan aan ognahay waa Cabdinaasir Joofle iyo sidoo kale Cabdullaahi Gaabane waa hagaag bal marka xisbiga UDA ee Kenya Kwanza William Samoei Ruto hogaamiyo kaadiriintana uu ka mid yahay aadan bare yay taageerayaan raggaasi loolanka adag ku dhex mara Garissa Township aadan bare uu ka guuleystay laakiin haddii dib markaasi doorasho loo galo yay taageeri doonaan horaantii bishan ninka la yiraahdo Cabdullaahi Gaabane wuxuu ka tirsanaa xisbiga Jubilee halka Joofle uu ka tirsanaa xisbiga ODM mise Azimio laakiin waxaa la aaminsan yahay maadaama aadan bare ducaale uu taageeri doono Cabdullaahi Gaabane in Cabdullaahi Gaabane uu ku biiro xisbiga UDA uu hogaaminayo madaxweynaha dooran William Samoei Ruto marka aadan bare ducaale xisbiga ayuu ku soo dhaweyn doonaa Cabdullaahi Gaabane halkaasina asaga ayuu u ololeyn doonaa mise u sameyn doonaa campaignka waa hagaag ololaha ayaa loo sameyn doonaa intaan ka bixin doorashadii hore aadan bare ducaale wuxuu ku guuleystay mise wuxuu helay 9,000 oo cod halka ninka labaad uu helay 5,900 oo cod ninkaas uu ahaa ninka yiraahdo Cabdinaasir Joofle halka Cabdullaahi Gaabane uu ahaa ninka saddexaad wuxuuna helay 5,500 oo cod waa hagaag marka laga tago golaha wasiirada la magacaabayo inta badan waxaa dhacda in markaasi laga agdhawaado madaxtooyada laga agdhawaado dadka William Samoei Ruto ku dhow aadan bare uu ka mid yahay iyo waliba dad kale bal markan yaa markaasi ku loolami doona kuraasta kale ee golaha wasiirada yaase ka soo muuqan doona adigoo sheegtay in Soomaalidu kaliya ay ku leedahay hal kursi marka laga hadlayo golaha wasiirada aadan barana ilaa iyo haatan wararka hordhacay sheegay inuu noqon doono yaase ka soo noqon doona dawladda iyadoo haatan sii dhacaysay muddada aad ku kooban u hartay Uhuru Kenyatta hogaamiyo wasiiradii hore ma leeyahay William Samoei Ruto saaxiibo uu aad ugu kalsoon yahay oo dib u soo noqon doona shaqadana halkoodii ka wadi doona marka hore aadan bare ducaale waxaa la filayaa inuu noqdo shakhsiga kaliya oo Soomaaliyeed oo ka soo muuqdo golaha wasiirada waxaana loo dhiibi doonaa sida la aaminsan yahay midda gaashaandhigga waxaan ognahay aadan bare ducaale wuxuu noqon doonaa shakhsiga labaad oo Soomaaliyeed oo kamid oo noqdo wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya waxaana ka horeeyay ninka la yiraahdo Yusuf ninkii Maxamed Yusuf ha ninkii geeriyooday oo dhalay ninka la yiraahdo Cabdulla Xaaji iyo sidoo kale
nuurudiin xaaji sidoo kale ha dacwadoogaha guud ee dalka Kenya ha waxaan ogeen markii KDF ay galayeen Soomaaliya waxaa amarka saxiixay Maxamed Yuusuf oo markaas ahaa wasiirka gaashaandhigga aadan bare ducaale wuxuu awood u yeelan doonaa in uu maamulo KDF mise ciidamada dalka Kenya hadduu noqdo wasiirka gaashaandhigga wahagaag marka waxaa leedahay saameyn aad u weyn ayuu ku yeelan doonaa siyaasadda gobolka iyo gaar ahaan kuwa deriska oo Soomaaliya la og yahay in gaar ahaan deegaanada jubbooyinka ee Jubbaland la isku yiraahdo Axmed Madoobena ka taliyo in ciidamada KDF laakiin ku jooga magaca Amisom inuu markaasi maamuli doono haddii uu tallaabo markaasi kala sameeyo isla markaana uu kala tashto madaxweynaha William Samoei Ruto waxa suuragal ayaa leedahay in ciidankaasi dib loo soo celiyo aadan bare ducaale wuxuu awood u yeelan doonaa in uu sidoo doono ka yeesho KDF mise ciidamada ammaanka dalka Kenya maadaama uu yahay wasiirka gaashaandhigga wuxuu amar siin doonaa ninka ka taliyo aan yiraahdo ciidamada dalka Kenya wuxuuna awood u yeelan doonaa in uu dib u soo celiyo aadan bare ducaale hadduu noqdo wasiirka gaashaandhigga sidoo kale wuxuu noqon doonaa mid ka mid xubnaha ugu sare dalka Kenya maadaama aan ognahay in wasaaraddaasi ay tahay midda ugu weyn marka laga soo reebo midda arrimaha gudaha uu hadda hayo Fred Matiang'i wahagaag waa mahadsan tahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaan markaas isla sii gaarina Cabdiraxmaan mar kale waxaan brief siinaynaa saaxiibada dib nooga soo biiray barnaamijka oo iyagu qaybihii hore aan haleelin waxa uu daaranaan doonaa barnaamijkeena amaba uu daaran yahay arrimaha la xiriira dalka Kenya iyo waliba saameynta aadan bare uu ku yeelan doono golaha wasiirada iyadoo warar hordhac ay markaasi sheegayaan in uu noqon doono wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya haddaba waxa markaasi su'aalo badan aan iska weydiinay qaybaha hore barnaamijkan aan ku soo falanqeynay haddii uu noqdo wasiir haba ahaatee xitaa wasaarad kale marka laga tago gaashaandhigga miyuu sii ahaan doonaa xildhibaan qaybaha hore ee barnaamijka ayaan su'aashaasi uga faahfaahinay Cabdiraxmaan Khaliifna uu markaasi kaga jawaabay haddaba su'aasha ugu dambaysa ayaan markan dib u weydiin doonaa Cabdiraxmaan taa oo Cabdiraxmaan maxay tahay sababta uu aadan bare isaga fasaxay kursiga baarlamaanka oo markaasi hogaamiyaha aqlabiyadda oo markaasi mid markaasi xubin ama marka xil aad u weyn kulahaa xilligii xitaa Jubilee haddii uu markan noqon lahaana uu ku sii yeelan lahaa maxay tahay sababta uu sanadkan u doorbiday inuu noqdo wasiir marka hore aadan bare ducaale wuxuu soo noqday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka marka kursigaasi uu soo arkay aadan bare ducaale wuxuu noqday xildhibaan kursigaasna uu soo arkay marka hadda wuxuu doonayaa in uu yeesho experience kale midda kale aadan bare ducaale hadduu noqdo wasiir wuxuu maamuli doonaa mise wuxuu ku wareegi doonaa dhammaan dalka Kenya maadaama uu yahay wasiir qaran laakiin hadduu yahay xildhibaan wuxuu maamuli karaa magaalada Gaarisa mise bartamaha Gaarisa meelaha kale xukun kuma yeelan doono sidoo kale budgetka xildhibaanka aad buu u yaryahay markii loo fiiriyo budgetka uu leeyahay wasiirka wahagaag bal wasiirka meequu qaataa Cabdiraxmaan taasi halkan ma caddeeno laakiin waxaan ognahay in wasiirka uu qaato ku dhawaan 1 milyan oo shilin halka ninka MP-ga mise baarlamaanka ku jiro uu qaato 700 oo kun wahagaag aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu Cabdiraxmaan Khaliif oo arrimaha Kenya aan iskala eegaynay wararkii ka soo kordhay markaasi xanta suuqa iyo siyaasadda Kenya ee markaasi la xiriirta aadan bare ducaale iyo waliba wasaaradda uu qaban doono iyadoo wararka hordhac ay sheegayaan inay tahay wasaaradda difaaca qaranka Kenya taa hore u soo qabtay Allah u naxariiste hogaamiyihii markaasi Garissa Township oo senatorka uu ka soo noqday dhowr jeer wiilkiisana uu ka dhaxlay markii uu geeriyooday Maxamed Yuusuf Xaaji laakiin Soomaalida inta badan ay u goran og yihiin Yuusuf Xaaji ka oo ahaa wasiirkii saxiixay in ciidamada KDF-ta Kenya ay galaan gudaha Soomaaliya sanadkii 2011 xilliga oo markaasi taageero iskaashi weyn ay kala saxiixdeen sidii jubbooyinka ay u noqon lahayd goobta laga difaaco amniga dalka Kenya maadaama ay ku soo badanayeen xilligaasi weerarada kooxaha argagixisada ay ka geysanayeen gobolka waqooyi bari iyo waliba caasimadda Nairobi oo lagu xasuusto dhacdooyinkii ka dhacay Westgate Mall iyo waliba jaamacadii Garissa oo dad aad u tiro badan lagu laayay haddaba saameynta jubbooyinka ay ku yeelanayso Kenya ayaa markaasi sii xoogaysan doona waa haddii aadan bare uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ama wasaarad kale oo markaasi xoog leh laakiin hordhaca iyo waliba markaasi xanta suuqa ayaa sheegaysa in wasaaraddaasi uu qaban doono oo uu noqon doono Minister of Defence of Kenya tani kulanti dambe intaan dib ugu kulmayna saaxiibayaal barnaamij iyo warar iyo warbixino kuwan ka duwan waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo